marka gegada diyaaradaha ee magaalada Muqdisho maanta laga soo dajiyay meydka Allah u naxariistay marxuum Maxamed Suleymaan Tubeec markiiba waxaa lagu daday calanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya qaar ka mid ah golaha wasiirada fanaaniin saraakiil ka tirsan ciidanka dawladda ehelada marxuumka dhintay iyo dadweyne kale ayaa ku sugnaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho iyaga oo markaasi soo dhaweeyay meydka Allah u naxariistay marxuum Maxamed Suleymaan Tubeec Allah u naxariistay meydka Maxamed Suleymaan Tubeec ayaa intaasi kadib loo qaaday xarunta dugsiga tababarka ciidanka booliiska ee General Kahiye halkaas oo ay ku sugnaayeen ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya saraakiil ka tirsan ciidanka dawladda xubno ka mid ah golaha wasiirada iyo fanaaniinka kala socday howlada kala duwan cutubyo ka tirsan ciidanka booliiska ee dawladda Soomaaliya ayaa heegan la geliyay howlada baanbeed ee ciidanka asluubta Soomaaliya ayaa markiiba garaacay astaamo qiiro leh ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya fanaaniin iyo dadweyne kale ayaa xarunta dugsiga tababarka ee ciidanka booliiska ee General Kahiye salaada janaasada kula tugtay marxuum Maxamed Suleymaan Tubeec iyadoo markii dambe lagu aasay gudaha dugsiga tababarka ee ciidanka booliiska ee General Kahiye Dr. Cabdiweli Sheekh Ahmed Maxamed ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegay in guddi wasiiraha loo saaray la socodka xaaladda ehelada marxuumka dhintay isaga oo sheegay in fanaanka dhintay uu ahaa fanaan qaran magacna ku dhex leh bulshada Soomaaliyeed kulankan maanta aaska ah ee Soomaalida oo dhan isugu timid wuxuu tilmaan u yahay sida qofka Soomaaliya dalkiisa u halgama aan loo ilaabayn oo loo ixtiraami doono oo loo xushmayn doono taasu inagoo dhan waxay noo noqon kartaa runtii tilmaan iyo tusaale in qarannimada iyo magaca Soomaaliyeed weyntiisa aynu u wada istaagno oo aynu ku dayanno Maxamed Suleymaan oo runtii magac weyn Soomaaliya ku leh mid ka mid ah xaasaska u dhaxay Allah u naxariistay marxuum Maxamed Suleymaan Tubeec iyo qaar ka mid ah caruurtiisa oo ku sugnaa halka lagu aasay ayaa Allah ugu bariyay in naxariistiisa uu siiyo marxuumka dhintay إلهي سوى حنو قرت شيء يعني حريص جنين إلهي كورابيه عذاب القبر جنال لكفوقيه رسول كيس محمد أنا وبدك تقبصه يعني إلهي وقرت شيء يا السلام عليكم ماما هذيك مقدش ما جوجي جرتي أنا وها مقدشان جوجي جري عيالك مقدشان كل دلائل شان عيال محمد دلائل كل دلائل مقدشة بيب هنتدى إذا نويت على مقدشة وأنا ودن لا يا هاي الصوماليات بسم الله الرحمن الرحيم إلهي ونحرستا بهاي أسنا أقسم ما نودع أسقنا في عم بقول دع إلهي وحن كبرنا إني هاي كنا في الدوسة كوران يسوي في مدن المحمد تودنا وعم بعيننا تود شرفت له يسوي أقسنا وقع بشيء يأسك في عم ودعي إلهي وحن كبرنا إني إلهي نحرسنا إلهي كوران أبوان محمود عبد الله عيسى سنجب يهيب محمد ودون هيب نورا تعسي labadoodu ay u direen Allah u naxariistay marxuumka dhintay kadib waxay iiga warameen taariikhda Tubeec iyo qaabku uu ku soo bilaabay fankiisa ilaahay naxariis ku jannah Allah ka waraabiyo Maxamed Suleymaan sida loogu qeyrooday sida loogu soo rogay sida loogu duceeyay shanta Soomaaliyeed meelay ku nooshahay Allahu akbar dawladda Soomaaliyeedna waxaan u mahadcelinaynaa sida geesinimada wadankooda dagaal ku jira ay u aaseen ayaan uga mahadcelinaynaa shacbiga Soomaalidana ducadii wada duceeyeen baan uga mahadcelinaynaa dadka aad u adeeg dadka u xishoodan dadka u aamusan dadka isdawro wuxuu ahaa Maxamed Suleymaan nin aad u codkiisa saad u aragtay ee loo raacay bay dabeecadiisu way hadduu dabeecad u yahay halka ma gaaro ka waran heesaa u sameysay heesaha diiwaan waan naqaanaa sidana waan naqaanaa هذا قام ساعتها سبع وعشرين كيلو رنتري وكيسي أفريقيا ودنو هيسي تصمر كاركتين وحباينا نسوسي سنة كنا وقاتين قرن من السكوريات لبعت الوقت شو يعمل شفت ماشان إلا سميسان سلقات هذا سكوريين من سيجي مش نورمال
ninku sii kuu faan nasar bay kaa qari ninku sii wax kuu sheeg ninku sugay garkuu dhigay ninku sii kuu faan nin salbee bay kaa qari ninku siray wax kuu sheeg Afrika ya siixan maxamed suleymaan tubeec ayaa ahaa boqorkii codka isagoo horay ugu luuqeeyay heeso ka hadlaya qiimaha qarannimada arrimaha jaceylka naxariista waalidka iyo farxadda maalmaha ciida markii ay gabdhowde gafanu ku naaxay gadada ku yaale gabadhaydu cunaysay gubanimadooyday ilma gabax ka siisay u ka soo horjeedo waa hubanti in dadka ku hadla afka Soomaaliga aysan si fudud ku ilaabi doonin Allah u naxariistay boqorkii codka maxamed suleymaan tubeec iyadoo waxyaabaha badi dadka Soomaaliyeed ay ku xasuusan doonaan ay ka mid tahay muuqaalkii wanaagsanaa ee uu u sawiray bulshada Soomaaliyeed. Aways Maxamuud Jilcow, Royal TV, Muqdisho.